kulantii habboon idil ahaantiin badda wadayaal meel weliba waad ka joogtaan daafaha caalamka. Halkan waa Raadsan TV. qaybtan waxaan ku eegi doonaa macluumaadka ku geedaaman dhismaha maamulka Jubbaland cusub ee laga dhisayo gobolka Gedo. Cabdirashiid Janan oo ciidamo Tirabella soo bandhigay ciidanka Jubbaland oo iyaguna kaabiga ku haya magaalada Balad Xawe iyo Cabdirashiid Janan oo laba arin oo guud ahaanba sir ah markaasi banaanka keenay. muuqaal umuurtaasi ku saabsan ayaan idin la wadaagi doonaa. sidoo kale waxaan kale oo aan idiin soo gudbin doonaa dowladda Kenya oo amar ku bixisay in guud ahaanba laga wareejiyo isla markaana ay ka fogaadaan ciidamada dowladda iyo kuba Jubbaland xadbeeneedka. maalmihii ugu dambeeyayna waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan dhacayo sidoo kale dhibaatooyin ba'an oo deegaanka ka dhacayay. dadka deegaanka ayaana la tilmaamayaa in si weyn ay uga cabanayaan ciidamada Jubbaland kuwa dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo la tilmaamayo in dhibaatooyin dadka deegaanka ay u geysanayaan kuwaasi oo dhacayo dilba isugu jira. macluumaad umuurahaasi ku geedaamanayaan guud ahaanba idinkula wadaagi doonaa intaan barnaamijkan ku guda jirno. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu baahin doonaa muuqaal taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland ee ay dowladda dhexe magacawday Cabdirashiid Janan oo khudbad u jeedinaya ciidamo kuwaasi oo kula dardaarmayo in guud ahaanba ay iska dhiciyaan ciidamada Jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada Mandera. soo dhawaada haday tahay markaa kugu horeysay aad soo booqato halkan subscribe noo saarno la garay muuqaalkan wad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. aanu guda galno macluumaad hoose oo la helayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in dowladda Kenya ay si weyn uga ashtakoonaysa xadbeeneedka ka gadaal dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaasi ka dhacay. taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa arrintaasi afkiisa ka qiray waxaana uu sheegay in dhibaatooyin xoogan halkaasi ay ka dhacayaan ayna geysanayaan ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale qayb ka mid ah kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Janan waxa uu hoosta ka xariiqay inaan la aqbali doonin askari dhibaato u geysanaya dadka shacabka oo wadaagta ee labada dhinac kala degan. waxaad beeneedka dhinaca iyo magaalada Mandera iyo sidoo kale dhanka iyo Balad Xawe waxaana la tilmaamayaa in dhibaatooyin dhacayo sidoo kale rabshada abaabulanahi ay halkaasi ka dhacayaan. ciidamada Jubbaland ayaa la tilmaamayaa in fariisinkooda horaan uusan uga dhoweyn xadbeeneedka isla markaana hadda ay ku soo shaqeen isla markaana ay u dhow yihiin xadka ayna siyaabooyin kala duwan dhacayo dhibaatooyin ay halkaasi uga geysanayaan. dowladda waddankaasi Kenya gaar ahaan mas'uuliyiinta magaalada Mandera ama ismaamulka Mandera ayaa waxa ay dalbanayaan in ciidamo dheeraad ah oo kuba Kenya la keeno xadbeeneedka si loo xaqiijiyo amniga muwaadiniinta Kenyaanka ah ee halkaasi ku sugan. waxaana la tilmaamayaa isla markaana la helayaa wararku in dowladda Kenya ay halkaasi ciidamo keenayso. waxaa jira warar kale oo iyaguna tilmaamaya in dhismaha maamulka cusub ee New Jubbaland la guda galay isla markaana kulamo aan kala soc lahayn ayaa ka soconaya qaybo badan oo gobolka ka mid ah. aan ku hormarno dhanka iyo Jubbaland waxaa kulamo aan loo kala kicin saacadii ugu dambeeyay ay ka soconayeen magaalada Dolow halkaasi oo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ninka lagu magacaabo Maxamuud Sayid Aadan uu kulan kula qaatay saraakiil ka socota qaramada midoobay iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha kuwaas oo kala hadlay guud ahaanba arrinta la xiriirta xadgudubka uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay gobolka ka wado. waxaana uu guud ahaanba qaramada midoobay u bandhigay in gobolku ay Jubbaland mas'uul ka tahay dhibaatana ay ku tahay dowladda federaalka Soomaaliya dhaqanka iyo guud ahaanba deegaanka in falal amni darro ay ka dhacaan dowladdu ay u sabab tahay. waxaana la tilmaamayaa in qorshayaashaasi iyo ajandooyin kale oo Jubbaland ay iyadu doonayso oo qarsoodihii uu hordhigay kuwaasi oo guud ahaanba ku qotoma arrimaha gobolka iyo tallaabooyinka ku aadan dhismaha maamulkaasi. sidoo kale Cabdirashiid Janan iyo saraakiil kale ayaa iyaguna kulamo ka wada magaalada Balad Xawe sidoo kale magaalada xaruntu waa gobolka Gedo ee Garbaharey waxaa ka soconaya kulamo xoogan oo Cabdullaahi Shimbir iyo saraakiil kale ay la qaadanayaan bahda dhaqanka oo ku qotoma guud ahaanba dhismaha iyo gudagalida maamulka cusub ee New Jubbaland oo Cabdirashiid Janan uu danaynayo in isaga madaxweyne uu ka noqdo. waxaa la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyadaasi maalmihii ugu dambeeyay ay siyaabooyin kala duwan ay deegaanka uga jireen. waxaana hadda wararka la helayo ay tilmaamayaan in guud ahaanba qorshahaasi la gudagalay. haddii aynu ku soo laabano wada hadallada dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland dowladda Kenya waxa ay guud ahaanba xal u waysay inay wada hadlaan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay ku fashilantay. Nuuruddin Xaaji ayaana wakiil uga ahaa. Itoobiya ayaa iyadu mar kale isku dayday waxaana la tilmaamayaa iyaduna inay ku guuleysatay
oo ay sidoo kale u yeertay saraakiil ka socota dowladda federaalka Soomaaliya ayna tageen magaalada Addis Ababa balse wararku waxaa la tilmaamayaa wadahadalladaasi in guud ahaanba ay fashilmeen arrimo la xiriira guud ahaanba garabyada oo si weyn iyagoo weli u kala taagan waxaa la tilmaamayaa hadda garabyada siyaasadeed in si weyn ay isugu hayaan guud ahaanba arrinta gobolka gedo oo siyaabooyin kala duwan garabyadu ay iyagu isugu hayaan dowladda Kenya waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba hadda ay ku kacday dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana waxaa la tilmaamayaa in xaaladdu aysan sahlanayn saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la tilmaamayaa in guud ahaanba lagala noqday baasaboorada iyo sidoo kale dhalashooyinkii ay ka wateen dowladda wadankaasi Kenya ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ayaana kamid ah Jibriil ninka lagu magacaabo waxaa kaloo iyagana lagala noqday saraakiil tirabeel ah dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo sharciyad ka haystay dowladda wadankaasi Kenya hadda waxaa la tilmaamayaa in garabyadu si weyn ay u kala taagan yihiin dhaqdhaqaaqiyo xoogan ayaana la tilmaamayaa inay ka jiraan xad beeneedka oo xiisada ayaana halkaasi ka jira janan waxa uu sheegay inay iska caabin doonaan dhinac waliba oo markaasi isku daya inuu soo farageliyo dowladnimada Soomaaliya waxaana uu sheegay in heegan uu geliyay ciidamo gaaraya ilaa iyo 3,000 oo askari ayuu xiray UK ku soo bandhigay kuwaas oo guud ahaanba uu kala hadlay arrimaha siyaasadeed ee gobolka ka jira waxaana uu sheegay in ay dhaqaajin doonaan hadii dhaqdhaqaaqiyo kale oo military gobolka laga sameeyo kuwaas oo guud ahaanba uu sheegay inay afjigi doonaan isla markaana ay hakin doonaan balmii ugu dambeeyay waxaa la tilmaamayay in arrintu ay ahayd mid la isku soo dhawaanayo garabyadu isla markaana wada hadalladu ay hagaagsanayeen hadda waxaa la tilmaamayaa in baraka male ay xaaladu gaartay isla markaana meel xun ay isla gaareen garabyada siyaasadeed walow aanan la ogeyn halka ay saldhigan doonto balse marka ugu horeysa waxaan idin daarayaa muuqaal yar oo ku saabsan Cabdirashiid Janan oo ciidamada la hadlaya isla markaana soo bandhigaya dhaca iyo boobka ciidamada Jubbaland ay ka geysanayaan deegaana hoostaga magaalada Mandheera iyo sidoo kale magaalada Balad Xaw kuwaasi oo sifaaladu Malaysia kaga soo talaabayay xadbeeneedku waxaana la tilmaamayaa hadda xaaladu inay tahay baraka male Cabdirashiid Janan ayaan muuqaalkiisa idin deynaya daawasho haboon وإلهي أمر كيس والله ياب إن عسكري دلكيسي قربي أو دبتي أو عرّي أو دل كلا نحجوج حدنا توديب أو مش نقول شعبك وبارته حدنا وكل نقول دلش الشيء أو كلا ودرسه وعقبض إلى هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدي بقى ديات بقوم هسنتين إلهي بقوم هذا سبحانه وتعالى وأوم هذا علني سراكيشي كهذا الشيء حالها بدن oo amni iyo disbilin iyo dhinac kasta lahaa oo taliyaha qaybta iyo cornel saaxiibkay wadayare iyo ragii iga horeeyay hadal kooban ma raba insha Allah taala ina idin iraahdo ciidan qurux badan oo Soomaaliyeed ba halkan fadhiyo waajibaadkii qaran oo saarnaana diyaar u ah inuu guto horeyna u gudo jiray sida ay saraakiisha iga horeysay ee uga hadashay in badan oo kamid ah disbilinka waxyaalaha si aad keenay waxa kamid ah xabad ridka qaldan oo meesha qaldan lagu ridahayo oo cadawga lagu ridaynin oo hooyadii canshuurta lagu soo gaday xabadaas bixisay ee cunug yeerka ay sabiga ah intaba caqabadii dhibka ku ah waxa amar ku bixinayna xabadaas dagaha shacabka Soomaaliyeed in laga daayo askarigii arintaas ayada sameeyo oo lagu ogaadana oo way arintaas aad u yartahay ciidamadana ay ku yartahay askarigii sameeyana ciqaabteedu la kulmi doona وقف هذا سمين كرو انتو حبدا كا كلا بخيو غمي عيدار رصاصه laga daadiyo baaruuda noo sameynaya saakon u dhiibaynana ma jirto in kuma jiro fuudi baan ku jiro engineer baan ku jiro darwal baan ku jiro gaandheel baan ku jirto aqoonyahana ku jiro waxaan ku jiro abwaano laakiin xabadan qof sameyn kara in ku jiro hadda samar ay jirin dawladda Soomaaliyeedna aynan warshad dhax oolino la soo iibiyo xabada macna laanta ku dhacayso hal daayo taas oo amar intaas kadib caqabadaha ama xogaha jirtay usbuuciidan magaaladan Cawasha ka timid saddex habeen oo la soo dhaafay saddexdii habeen raboodkii ay ciidamada gudaha ku jiro amniga ka shaqeynayeen oo Suudiga booliska intaba lahaa aan ku xaqiijinay waxay noqotay xalay wali waxa lagu sii daray dal kale iyo isku dir iyo xagalad kale oo caqabadeeda leh dabcan dawladda Kenya saaka ay xogaal ka tahay
arrintaas waxay ahayd baarasho shacab la baartay oo xaafado loo dhacay oo dad moobeelo laga qaatay ba xaafadda ciidanka ee xaradan korkeeda ah oo u soo xigta xaafad ahaan baa ka dhacday habeen hore iyo habeenkii sii horeeyay raadkii markii la qaaday oo culaamihii ammaanka ay qaadeen sidii loo sii waday ciidamadaas biibuwan degan buu galay waa ilaahay amarkiis waa la yaab in askari dalkiisii qarribay oo dhibaateeyey oo cararay oo dal kale dhex joogo haddana intuu dib ugu soo noqdo shacabkii uu baarto haddana uu ku noqdo dal shisheeye oo kale oo daris ah waa caqabad dheeraada wa isla taas tu la mid ah xalay waxaa dhacday 3 nin baa ciidankaas iyadoo oo meeshaas joogo fallaagada ka soo tagtay xaafadda ay kor degan yihiin oo qayb ka degan yihiin oo la yiraahdo BB1 ayay yimaadeen dad bay telefoon 3 telefoon bay dad ka qaateen kumayna akaanina way soo baxeen xaduud ay imaadeen oo dhinaca Soomaaliya wali ay soo istaagin laakiin adigu ciidankaas militariga meeshu degan yahay soo dhaafeen oo ciidankaani kale xaduud ilaalinaya rundooyinkiina ay isla yihiin ma gaaraysan waxay xabado dib u rideen ciidanka Kenya xabado ku rideen xabado kalena ciidanka islaayeen rondada iyo aagay ay ku filayeen oo ciidankaani ruuhu u deganaa ahaa way uga cabsi qabeen in ay islaayeen xadareenaan xabadan kaga soo dhici doonto bay xabado u soo rideen arrintaas oo isku dhaxmar ay daneynayeen iyo aqli aad u liito oo ah dawladda Kenya inay dawladda Soomaaliya ciidamada soo xabadeeyeen ha aaminto ciidamada Kenya xabadaha soo rideen kadibna ciidamada Soomaaliya Kenya ciidamada Kenya xabadii ku soo riday hadheeno ha xabadeeyeen ay kara Kenya inay dawlad tahay caqabada carrada ka jirta dadka ku nool Madheera oo amlaamaha amniga ka shaqeeyay arkaan wixii ay xaqiijin karaan maalin iyo habeen baraad la arki karo la qaadi karo maysan ku xisaabtamin isla xalay laamaha ciidamada amniga Kenya waxay xaqiijiyeen raadkii intay qaadeen si u wadeen bixirada ciidankooda galiyay meeshii deganayeen war nimankan raadka laha dadna xabadeeyay dadna soo baartay keena waa waxa ugu yar oo shacabkaas Kenya degan oo Soomaaliyeed ama dhinaca kale degan kale oo Itoobiya oo aan darisna ayadana shacab kale Soomaaliyeed baa dhinaca kale ka degan bay ka degan yihiin marna dhex tagaan caqabada ugu yar oo ay ku sameyn karaan Kenya Itoobiya waa laba dawlad aan darisnahay dalkanaga saaxiibtinimo kala dhaxayso wax hadda xumaan ah ama siyaasadeed oo dagaal ka jira labada dal noo dhaxayay isan jirin daris wanaag aan nahay ciidamadooda labada dalba ay joogaan dalkayaga ciidamada nabad ilaalinta ay kamid yihiin shacabkayga Soomaaliyeed qaxooti oo ku dhaxnool yahay dawladda Soomaaliya xumaan dawladda Itoobiya ma rabto dawladda Soomaaliya xumaan dawladda Kenya ma rabto ayakana macdaalika saasi la mid ma rabaan laakiin shaydaan barbarxiir ah oo dhinacna raba dadka inuu wanaag ka tuso dhinacna raba inuu xumaan ka tuso baa ku dhaxnool waliba qaasatan dawladda Kenya maalinta waxaan maqlayaa wasiirka amniga Kenya mar Madheera yimid dhahayo wax ciidamo ah oo dalkana ku jiro oo ognahay ma jirto markaas ka horna hadal kale aan ka maqlay oo ku diiday ciidamada meesha degan waxaan u baahanahay shacabka Soomaaliyeed oo Kenya degan gaar ahaan Madheera degan ee shacabka Soomaaliyeed oo suuf degan caqabada nimanka qaar ka mid ah naftooda ay gaari karto ay u gudbaan waxa ugu yar oo caqabada oo nimankaas meesha degan oo dawladda Soomaaliya fallaagada ku ah oo hantida dalka Soomaaliya haysto gaadiid Soomaaliyeed wato oo booliis ah oo buufsan oo calaamadda qaranka Soomaaliyeed leh oo meeshaas joogo waxa la yiraahdaa waxaad qarsato way ku qarsadaan waxa la yiraahdaa waxaad qarsato way ku qarsadaan caqabada ugu yar oo sameyn karaan waa inta xalay ay sameeyeen xalay ciidamadana is xakameeyay oo xabadihii lagu soo riday aana ka jawaabin kuwa Kenya saasi la mid ah aana ka soo jawaabin xabadihii lagu riday laakiin daqiiqadan minad yar bay xabad gacanta uga bixi kartaa oo dib ku iman karin
sababta askari xadkiisa asoo jooga xabad lagu soo riday oo xad kale looga soo riday waa inuu rido waa meeshii istaagayaana qofka xabadda lagu soo riday Kenya waa la ekaan kartaa Soomaaliya waa la ekaan kartaa laakiin xabadda meeshii lagu soo riday Kenya gudaha Kenya oo meel soo gaarin xuduudda Soomaaliya sababtoo hadda ay yiraahdeen xabadda ku soo ridan ku aadkeeda ciidankan ayaa joogayba oo deganaa oo hadday Soomaaliya u soo gudbaan ayakana waa ogaayeen ciidankanagu inuu eridaas ku sugan yahay dad isxoog yaqaano telefoonada la kala hayo nadwag baa waxa sidan maxaan warbaahin baa jirto waa dadkii waa isku isdhex socdo waa ogyihiin meesha xabadda ku soo ridayaan ciidan inuu joogo ma ahan hebel inuu joogay ogyihiin hebel xabadda soo ridaynayeen marka arrintaas marka waxaan rabaa maalin dhawaan saasi la mid ah shacabkan walaalaha nahayo Kenya dib baa gaaray qarax baa ku dhacay maamo masaakiin ah oo caruur korinayso oo hooyaha ku dhimatay kuwana ku curyaamin xalayna tana loo geystay xalay tana aragnay oo noocaas u dhacday ma ahana kuwa kale oo aan ogeyn waa ku dhacayaan shabaab xirxirnaa oo awada taqaanaan oo dool ku xirnaa oo maalinkii dool saldhig dagaalka ka dhacay soo goostay oo shabaabka maxaabiista fakatay kamid aha oo hubaysan baa biibuun joogto oo taqaanaan oo hebel ah oo ogtiid in marka amni darro shabaab iyo mid falaago oo dhax socdo uu ku sameeyay intaba ay ku dhacayaan shacabkan ayna aamusnaadaan oo arrintaas iyada ah ay dushooda ku dhacdo oo ay dib ku soo gaaraan ayakana oo ma yeeli karaan annagana oo ka xanuunsanayna sababtoo shacab Soomaaliyeed oo shacabka balaxa wadagan iyo mid ka mid dheeraad degan ay xal yihiin inta ogna walaalo wax kala iibsado hanti isku hayo isyaqaano wax wada cuno muslimiin wada ah Soomaali wada ah baa Mandheera ee buulaha ku nool nin marka gurigiisa soo gubay inuu kaada gubo sax ma ah shacabka iyo mas'uuliyiinta iyo dawladda Itoobiya oo aan dariska nahay waxaa ugu mahad celinayaa ay ku arrintaas aad bay iskaga xakameeyeen dhinaca suufka aad bay wax xakameeyeen meesha dhibku ku hayaan waa Mandheera nimankaas waa iska celiyeen waa iska soo gudbiyeen kuwa hore oo gudbiyo ay ku qoriyo wata tageen waa qabteen qoriyo bay ka qaadeen oo ka dhigeen station bay ku xireen markii dambana waa iska soo gudbiyeen oo soo dhaafiyeen maxaabiis ayko ah baykii qorigooda soo kala gudbiyeen oo wixii mas'uuliyad u sheeganay ay ku soo wareejiyeen laakiin xagee soo gudbiyeen dalka Soomaaliya oo soo gudbiyeen dalka Kenya ku gudbiyeen oo meeshii joogan Soomaaliya ma ah oo loo soo gudbinayo shacabkaas mas'uuliyiintii Itoobiya oo ka heer klin iyo heer federaal baa oo shacabkaas u naxday waa mahadsan yihiin sababta waxa shacabkan ku dhacay Mandheera oo Soomaaliyeed oo baarashada ah oo dilka ah oo boobka ah oo nooc walba leh oo intaas waxa dadka Soomaaliyeed waa dad xumaanta iyo ceebta qariye waxa ay reebibuwan ama reer Mandheera qarsanayaan baa ka badan waxa ogna baa ku dhici lahaa laakiin rag adag oo mas'uuliyiin ah helay markii ay gudbeen ay ku cararahay u tageen oo qoriyo watan qoriyay waxa xireen oo ka dhigis bay ku sameeyeen station bay ku xireen haddana waa soo gudbiyeen oo soo dhaafiyeen waa nidaamka dawladda lagu aqoon jiray waa nidaamkii nin dalkiisa ilaalinayo mas'uul ah ama askari ah oo sameyn lahaa bay sameeyeen ama sii dawladda Kenya saasi la mid ah waxaan filaynaa wali reer Mandheera inay kuwaan caqabada ah ku ah shacabkooda Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya iyo ku shacabka reer Kenya oo Soomaaliyeed oo Soomaalida aha oo Mandheera degan iyo ahaan dawlad ahaan Kenya intaba caqabada ku ah kolbo inaga dhiga yaro nabana aragti yaro go'aan inay ka gaari doonaan waa rajeynaya sababtoo ah dhibaato joogto ah oo shacabkoodii iyo dawladnimadoodii ku socoto
waa arkaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena tan iyo kulan dambe nabad